marka ramadaan oo saacada kooban ka laaban yihiin ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan weydiisanayna inuu nabadgeliyo nagu gaarsiiyo ka faa'iideysigeedana nawaafajiyo si fiican aan uga faa'iideysanno bishii oo qarka inugu soo haysa ayaa waxaan doonayaa inaan idin tilmaamo maxaa laynooga baahan yahay bishu intaynan dhalanin oo loo baahan yahay inaynu ku tilaabsanno tilaabada koobaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu toobad keenno ilaahay u soo khaladaadkaynu gallay inaan ilaahay uga soo laabno khaladaadka ka soo laabashadooda si dhab ah qalbiga ka toobad keento xumaantii iyo dembigii aad geli jirtay ka qoomamooto go'aansato inaadan dib dambe ugu noqonaynin towbadda markaad la timaaddo liibaan baad ku gaadhaysaa ujeeddadaada adduun iyo aakhiraba wanaagsan ee aad raadinayso waxa loo maro waxaa ka mid ah iyo asbaabta lagu gaadho towbad iyo ilaahay inaad u soo noqoto tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صلاة مؤمنين تيو إذنكو إذن سئاد الليبانتان وفي الصعيلة سئاد الليبانتان liibaanta adduunyo aakhiraba waxay ku xidhan tahay inaad ilaahay u soo noqoshadiisa badiso tabaaraka wa tacaala maadaama xilli barakaysan iyo taaca khayraad badan inaan kasbanno aan doonayno qalbiga ayay wax walba ka go'aan isagaana xaruntii ah isagu hadduu daciifo daacadaadu waa daciifaysaa socodkiisu hadduu tabar yaraado khayrkaagu waa tabar yaraanaya hadduu xoogaysto iftiimana daacadii iyo wanaaggii buu macaansanayaa khayrkaagaa badanaya qalbigaaga marka inaad ka shaqayso ood qalbiga hagaajiso ood islaaxiso si aad jaaniskan uga faa'iidaysato qalbigana waxyaalaha lagu islaaxiyo waxaa ka mid ah tawbadda oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi adoonku markuu khalad galo oo dembi galo qalbigiisa dhibic madow baa fuulayso والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما حدود دنبغي كتغو والله دنبي داف ويديس او صلابته bigi waa la soofaynaya waa la hagaajinaya daxashii baa laga qaadaya mugdigii baa laga tiraya iftiinkii awoodii buu soo ceshanaya si xoog badan buu markaa ku dhaqaaqaya taacada u dhadhamaysta hadduu adoonku khalad ku galay ku laabto isagoon toobad keenina madowgii baa la siyaadinaya iyo dhibicdii ilaa qalbigiisa ay wada daboosho wada gaadho rasuulku sallallahu alayhi wasallam sidaas daraaddeed qalbigaaga inuu khayr ka jeclaado oo khayrka u adkaysto oo soonka u adkaysto oo salaada iyo sadaqada iyo qaabilo waxay ku xidhan tahay qalbigaaga inaad daahiriso hagaajiso taana waxay ku iman kartaa inaad ilaahay si dhab ah baynaka wa bayna rabbik inaad si